gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdi Khayradir ayaa maanta kulan ballaaran kula qaatay istuwayaasha iyo waliba hay'adaha maxalliga ee dawliga xarunta maamulka gobolka Sool. kulankan ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayo dardargelinta hawlaha xafiisyada dawladda ee gobolka Sool guud ahaanba iyo waliba si looga tabaabashaysan lahaa abaaraha baahsan ee ka jira qaar ka mid ah goobaha gobolka. waxaana shirka ka bacdi warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdi Khayradir oo sheegay uga mahadceliyay istuwayaasha hay'adaha dawladda ee gobolka Sool sida ay uga soo xaadireen shirka khamiislaha ah kaasoo la isku naaqashayay wixii qabsoomay iyo wixii aan qabsoomin. waxaana shirkaasi ka soo qayb galay taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Sool iyo waliba taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. maanta waa maalin khamiis ah waa 2018 bishii labaad waxaan ku soo xarunta maamulka gobolka Sool waxaan lahayn shirkayga joogtada ee suduuyaasha gobolka Sool iyo hay'adaha madax bannaan iyaguna gobolka hawlgala ee dawliga ah ajendaha saaka wuxuu ahaa afar qodob oo ahaa koow waxay ahayd dardargelinta hawlaha qaranka loo hayo in la laabo oo la dardargeliyo oo hadii Ilaahay ku roon yahay dadaal dheeraad la siiyo qodobka labaadna waxa shaqada soo galida iyo ka bixitaanka oo iyadana ahayd sida la go'aamiyay ee qaranku go'aansaday in shaqooyinka la soo galo 7 barka subaxnimo lagana baxo 1 barka suduuyaal badan halkan fadhiyo iyaguna hawsha dardargeliyo bilaabeen aad iyo aad bay ugu mahadsanyihiin. qodobka saddexaadna wuxuu ahaa xaaladda abaaraha ah ee gobolka jirta in xog rasmi ah laga helo oo suduuyaashu ay xog rasmi ah ka keenaan kulanka dambe khamiista. qodobka afraadna wuxuu ahaa national plan 2 oo 5 sano ay soo socota oo buugan wasaaradda qorsheynta qaranku iyo hay'adaha ku shaqada ay soo diyaariyeen isna in aanu dardargelino oo wasaaradda walba iyo hay'ad walba oo dawladda gobolka jirta wixii ka qosay ay qaadato oo lagu dabagalo oo dabagal lagu sameeyo inahaas u mudaarna aad baan ugu mahadcelinayaa suduuyaasha wasaaradaha iyo kuwa hay'adaha madax bannaan ka soo qayb galay shirkan xilligeedii ku yimi waa mahadsan yihiin. waxaan leenahay shirkaas joogto weeye oo hal noqdo mid mataqaanaa dardar gala mar walba saacad walba. waxaan inta ku darsanayaa sidaad la socotaan gobolka abaar baa ka jirta runtii wax la qarin karayo oo la buunbuunin karayo debeel laga sheegi karanayo maaha. waxaa jira goobo gobol ka mid ah oo biyo la'aan baahsan ay ka jirto oo xaaladoodu ay serious tahay. waxaa jira riigag fara badan oo gobolka ka shaqeyn jiray oo fadhiistay oo fadhiya kuwana hadda gacanta lagu hayo waxaa ka mid ah riiga Orbogays oo muddo fadhiyay. waxaa ka mid ah riigii Lafweyne oo isna fadhiya. waxaa ka mid ah riigii Ceegaag oo isna hadda gacanta lagu hayo oo ilaa bir dhamaan doona. waxaan leenahay riigaasna waa fadhiyaan kulli wasaaradda khayraadka biyahana waa noo sheegnay waxaan rajaynaynaa inay ka soo jawaabi doonaan. waxaa ka jira iskuulo dawliga oo iyaguna biyo la'aan ka taagan tahay oo iyaguna biyo haysan dhaqaalaha ay biyaha ardayda ku siiyaan haysan. runtii kulli abaarta baaq waan ka soo saari doonaa aan u dhannahay hadii Ilaahay yiraahdo oo maalmaha soo socda. waxaan leenahay hay'adaha gobolka hawlgala waxaan uga fadhinaa inay shaqooyinka ay wax qaranka u hayaan ay dedejiyaan ma aqbali karno qaadan karmayno runtii hay'ad iska fadhida gobolka waxba aan qabanayn oo gaar iska wadato ama gaar kormeer ku wareegta waxay hayaan waa lagu xisaabtamayaa oo lagu dabagelayaa. hadii muddo fara badan media laga sheegay in hay'adaha la dabageliyo si runa loo dabageliyo xafiisyadooda la tigi doona waxay qabanayaan waa la eegi doona. hay'ado badan oo shaqeeyo shaqooyin fara badan qabtay oo gobolka wax weyn ka qabtay baa jira. hay'adahaasi waa nooga calaamadsan hay'adaha kale wayna ku mahadsan yihiin. waxaan leenahay aynu isku tashanno qaran ahaan iyo gobol ahaan baynu isku tashanno dadkeena aynu shaqeyno shaqooyinka aynu qaranka u hayno dawladuna way nooga xisaabtamaysaa. ilaahayna maalinta qiyaamaha ayuu qof kasta weydiinaya mas'uuliyadda uu saaray. shaqada aynu hayno ilaahay marka hore aynu uga baqno oo qofku markuu shaqada ilaahay uga baqo ayuu mas'uuliyiinta kale ma taqaana ku ixtiraamaa. ha is oranin mas'uul baa tahay oo xilka laga qaadaya ma taqaana laakiin waxaad uga baqdaa mas'uuliyadda ilaahay uga baq dadka u qaaday. hadalka waxaan ku soo koobayaa inahaas shirkaygu daarnaa si wacan waa loogu qabsoomay. waxa maanta iyaguna runtii nagala soo qayb galay shirka oo xusid mudan guddiga nabadgelyada gobolka qayb ka mid ah oo ay ku jiraan saraakiisha ciidanka qaranka militariga iyo saraakiisha booliska gobolka
وبرخد عمر أحمد وربانت قرن كتمرد السوماليلان لاسعانات.